khadka telefoonka waxaa hadda si toosa ugu jira gudoomiyaha ururka dheedh samafale Axmed Cumar Jaamac. samafale ugu horeyn soo dhawow, bal ugu horeyn maxaad kala socotaa xaaladda guud ee dalka? bismillaahi raxmaani raxiim. weli cabdiraxmaan waan ku salaamayaa marka hore. aad iyo aad baad u mahadsan tahay. salaanka macdi dalka waxaa ka soo noqday bishii hore labadeedii. dalka somalilan waa nabad wax ka wanaagsan oo la sheegayaa lama jirto. nabadgelya dhammaantii ka jirta, wax ilaahay loogu mahadnaqo. alxamdulilaahi rabbilcaalamiin. waxaa kaloo u raaca inuu ahaa barwaaqo sanadaha dambe. sanadkanna aad barwaaqada u badan tahay, roob badani ka da-ayo. wadahadalku waa horuu u socdaa, haba gaabiye. shicibkuna aad bay u dadaalayaan, inkastoo goboladu kala yara horeeyaan oo gobolada barigu xoogaa u yara daba dhacsan yihiin. waa dowlad yaroo dhaqaalo badan aan lahayn, qolyaha barigana waa kasoo fog tahay. alxamdulilah, sidaa kusoo arkay waa horeba isaga socdaa. horumar badanna waa soo guuxayaa. marka guud ahaan dalku hadduu nabad yahay, waxaa kusoo kordhaya xanuunkan coronaviruska in dadka aada looga wacyigeliyo way u baahan yihiin. waxaanu naga dhaayarsadaan beriha dambena waa yeel badan iyo dad badan baa u dhimanayay, weliba magaalo madaxda Hargeysa. ilaahay naga ilaaliyo xanuunkaana. sida kale dalku waa hadday nabadgeli jirto waa iska fiicanya, dalku aada u wanaagsan yahay. intaasa kaga baxaya arrinka dalka inuu nabad yahay, barwaaqo yahay. insha allah howlo kale aada isu geli maayo. aadna kuu salaamaya. waad mahadsan tahay gudoomiye. su-aasha labaad haddaan ku weydiiyo, halkay maraysaa wadadii tabca? bal halkaasna nooga waran. hadda wadada loo hayaa ay yaalaa. waxaa kusoo kordhay rugley, iskaafeynta, sheewal, gaadhiweyne iska rogaa, mooyal. marka qalab sideeda baa hadda jooga iyo shaqaalihii. marka hawshii lacag ururinta ay dadkii bixinayay, kharashkii wuu soo kordhay. waxaa soo kordhinaya qalabkii. waxay u baahan yihiin shidaal, waxay u baahan yihiin darawalin, waxay u baahan yihiin obaritaro, waxay u baahan yihiin dayactir. marka howlahaasoo dhan waa meeshii hadda soo kordhay. dadka maxsiniinta ee wadada wax tari jiray iyo kuwa dambe dhegeysanayaaba waxaa ka codsan lahaa wadada inay u dadaalaan, waxay usoo diri kari lahaa ay usoo diraan. xagga dowladda waxaan aada ugu mahad celinaynaa ninka la yihahdo Sacad Cali Shire, wasiir Sacad Cali Shire, wasiirka maaliyadda, oo howlo badan naga qabtay, ilaa haddana si wanaagsan nooga shaqeeya. wasiirkii hore gaadiidka Cabdilaahi Abukor, oo isna aada noola shaqeeyay, shidaal mar la siiyey. laakiin wasiirkan wasaaradda maaliyaddu mar walba waa garab taagan yahay. waxaanu filaynay gacan weyn oo si dowladda ah oo mar ilaa madaxweynaha weli waa sugaynaa. in badanna way nala qabteen. waxaan jeclaan lahayn gaadiidkaa badan ee yimi in dowladdu running cost-ka maalinlaha ee gaadiidku u baahan yahay ayna wax nala qabato ama la wareegaan. annaguna waa sii wadana intaan wadi karno insha allah. ilaa heer laamin gaadhno. oo hadda waxaa jooga qolo SDF-tu dirtay oo sarfi qaadaysa. sarfigaasoo sarfi caalami ah. waad mahadsan tahay mudane gudoomiye. ugu dambeyntii maxaad fariin u diraysaa bulshada ku daawan doontaa mise ku dhageysan doontaa? waxaan bulshada ay daawan doontaa ama dhegeysan doontaa insha allah. waxaa si mugiya misaal looga codsanayaa inay wadada tabca
laanaankeeda kasoo qayb qaataan meel kastay joogaan soomaali oo dhan ama somaliland oo dhan waa wadno waa sadaqa tijaariya waa wixii ilaahay dadka meelyan wax ka qaada waa ajar badan helaya qofka wadno weyn wax ku narsadaana wax badan buu helayaa reer somaliland waxaa leeyahay nabadgelyada hala ilaaliyo hala ilaashado wadnada hawsheedana halalaga qayb qaato aad iyo aad baan idinka codsanaynaa inaad kasoo qayb qaadataan wadnada waxaa ku dari kartaa ku darto tv-ga iyo weriyaha cabdiraxmaan bidishna aad baan u salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kaasina wuxuu ahaa Axmed Cumar Jabaabul gudoomiyaha wadada Tabca ahna gudoomiyaha ururka dheer samafale Axmed Cumar Jaamac aad baan kaga mahad celinayaa samafale waraysigan aad na siisay